sheekh mukhtaar roobow cali oo mansuur ayaa la sheegay inuusan la kulmin dhakhtarkiisa caafimaad oo ay usii dheer tahay isagoo wajahay cabsi dhanka amniga ah. maxamed ibraahim bilaal oo ka mid ah aqoon-yahanada deegaanada maamulka koonfur galbeed islamarkaana xubin firfircoon ka ah xisbiga amniga iyo cadaalad ayaa u sheegay goobjoog inay heleen xog ku saabsan khatarta amni ee uu wajahayo mukhtaar roobow cali oo mansuur. waxaan soo gaarayaa runtii warar axdin badan oo walwal badan oo ku saabsan xaaladda caafimaadka ee hogaamiyey sheekh mukhtaar. waxaa jirtay warar oo dhinacyo badan ka imaanaya. waa ogtahay 2 sano iyo sanadkan inuu madaxweyne mukhtaar uu leeyahay farxade iyo fahdiyaasi oo ku dhacay marka waxaa la helayaa inkastoo dadka ay tagaan aan loo ogolaan oo xiriir telefoon uusan haysanin. waxaa jirta marka dad aada dhow oo ama meesha maaragtay siyaabo kala duwan ooga shaqeeya ayaa waxay soo sheegeen in xaaladda caafimaadka ee sheekh mukhtaar ay aada iyo aada u liidato muddo 4 bilood ah. muddo 4 bilood hadda laga joogo loo diiday in la geeyo wax jakid ah oo baaritaan caafimaad loo diiday in dhakhtarkiisa uu la kulmo loo diiday oo markaas dhanka caafimaadka in aada iyo aada u liitaa la sheegayaa oo waxa weeyaan maxay haysay muddo 4 biloodana aan la xusuusin wax dhakhtar ah isagoo ka xanuunsanaya dhanka kelida. arrintaasaa jirta oo runtii walaaca weyn abuurtay. maxay ahayd oo dadka eheladiisa ay la soo wadaageen annaga nala soo wadaageen oo xisbiga ay la soo wadaageen. marka arrintaasi saasay u jirtaa. waxaa kaloo jira saad ogtahay farmaajo hadda madaxweynkiisii sharcigaa waa dhamaaday. marka dowladdiisii marka waxay noqotay dowlad kala daabatay oo aan iska warhaynin xagga nolosha oo maaragtay guriga nolosha ka jirtana waxaana sheegahay nolol aada u liidata inay tahay oo wixii xataa noloshii caadiga ahaa oo biniaadam ku noolaan lahaa aan meesha aysan oolin waa la geynaynin. oo markaasi xagga noloshana liidasho badan ayaa laga soo sheegayaa iyo dhibaato badan ayaa xagga nolosha haysata sida wararka aan helayno. waxaa kaloo walaaca kalena soo gaaraya jirto waxa weeyaan dhanka amniga. waxaa jira qorshe gebageba ah oo ay wadaan nimankii maaragtay shabaab ahaa iyo qolyo kale oo kuwa sheeka soo afduurtay ah oo la rabo sheeka in lagu qaarijiyo. marka arrintaas ayaa na soo gaaraysa runtii walaaca weynaa jiro oo dhanka amniga dhanka nolosha dhanka kale maxamed ibraahim bilaal ayaa ugu baaqay xildhibaanada laga soo doorto deegaanada maamulka koonfur galbeed kuwooda wanaagsan inay ka qayb qaataan samata bixinta xaaladda sheekh mukhtaar roobow cali oo mansuur. wallahi annaga waxa weeyaan nimankan maxay ahayd baaq iyo wanaag ujeedin iyo garabsi intaba waan kala daalnay oo waxaa muuqata nin markaasi adiga jiritaankaaga iyo dadnimadaada iyo deegaankaaga oo dadnimadaada waxaan aqoonsanayn ayaa muuqata inay nimankan dila soomaaliya hadda waqtigooda dhamaaday inay yihiin. marka waxaan rabnaa in marka koowaad loo ogolaado in la arko xaaladda maaragtay madaxweyne sheekh mukhtaar xaaladiisa la ogaado loona diro dad markaasi dhakhaatiirtiisa loo fasaxo. waxaan kaloo ku baaqaynaa in markaasi dadkan internationaalka ah ama laqeybta cas ama bisha cas oo arrimahaasi maxaabiista iyo dadka abduulka loo haysta dabagalka ku sameeya inay arrintaasi ay maxay ahaysay ay eegaan. waxaan kaloo ku baaqaynaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya inay si dhow ula socdaan xadgudubka 2 sano iyo bari jirsaday ee ku dhacaya yani musharax madaxweyne sheekh mukhtaar ay kula kacayaan nimanka xilka waqtigooda dhamaaday farmaajo iyo fahdiyaasi oo dulmiga xooggan ay kula kacayaan inay aada ula socdaan. waxaan kaloo u baaqayaa haddiiba laf ku jirto